هذه هذا أكتر واحد هذا صحيح ووراق المحكمة كوضت قانون كالسحر صار عادي وراق ده حفيز كه جاء هالريسيف قريو تيم براها كله فتح أنا جا هيسو شيء هذا حفيز كالسحر أو مجري ورد كان أساسه كل إني هاي وحرم إنه كوميونيكيشن بحي أو ماشي برلمان كشوا ويا محشومة محمد عبد الفارح وراقبة محكمة كي ماتي ماشي أيضا ولا جاب شيء أقول لكن أنا أقول بهذا الوراق إلي مات أنا ما كان يزن يا وحاس وح كجير ما وح عيالي إننا ماها يا مال بين كوبي شون وعلى كلا قادنا مال هديك أنا هلا استرتيبيو شرعي هلا راعو هاي كل واحد هلا دكتور أنا كان مالها عن جوجنا شرعي بان كجوجنا نظام بان كجوجنا نمكن النظام كراعي واي هذه ما شاء الله ما كلا تربنا هاللوجا halkan waxaa ka dhacday Garissa County Assembly inaan is dooranay leadership hogaanka aqalka Garissa County Assembly inaan iska dooranay waxaan u dooranay mudane Maxamed Cabdi Faarax oo laga soo doortay Dadaab oo Wiper si cadaalad hufan sinaan iyo israacsan aan ku soo banay noo kala harin Azimio Party hadaan nahay Azimio Coalition hadaan nahay waxaa dhacday xisbiyooyin ku jirin coalitionka Azimio inay saxiixaal soo qaataan asagoo ayagoo soo magacaabteen qof kale oo laga qaado mas'uuliyadda ay yiraahdaan anaga waxaan nahay Azimio Coalition signature ay ku leeyahaan assemblyga mise Azimio ila aadaan waxaan baaq u direynaa Mheshimiwa Junet Maxamed oo ah Secretary General Azimio waxyaalaha qaar uu suubiyay inuu ku fududaaday arkayna anaga hadaan Azimio Coalition waxaan leenahay he has to revoke that letter first midda labayso inuu warqadaas ka laabto aan baaq u direynaa waa Azimio number 2 waxaan leenahay assembly hadaan nahay waxaan leenahay the head of the assembly speaker waxa fiicnaan lahayd Junet markuu warqadaas u bixinay inuu communication soo suubiyo speaker of the Garissa Assembly uu wareysto sidoo u dhacay laakiin muusan sameynina warqadan u maleeyna ilaa haddaan u maleeyna in river laga soo hagaajiyay ayaa habada noo soo geliyay waxaan leenahay haddii walaalahayna oo kursiga laga qaaday ay cabasho taban hayaan waxaan baaq ugu direynaa nidaam la soo raaco jirta oo qayb maxkamad mise meelaha lagu doodo laakiin dhaxdayna MCS-ka inaan isdhex orodno oo dhahno aniga waraaq wada ama waraaq keen speaker ama in ka baxay waxaas waxaa wax fowdo haddii fowdo la wadana haddii fowdo magacan kana aragbo nin gacan go'an ma laha nin lug go'an ma laha waxaan leenahay dadka walaalnimo ku wada shaqayn kara baahida Garissa County ay leedahay ka weyn dantan la soo doortaan qabsano hogaankana nin buu Ilaahay maalin siiya maalin buu Ilaahay ka qaada marka anigu waxaan leeyahay walaalaha laga tirabatay go'aanka qaadanay assemblyga soo raaca wala shaqaynaan diyaar u nahay wala iskaashan diyaar u nahay marka waxaan dhihi lahay dadka Azimio ku jiro oo waraqda saxiixay oo majority-ga hogaanka waa sax wixii kale insha Allah taala waxaan leenahay baarlamaanka u daynayna iyo nidaamkiisa iyo hogaankiisa u daynayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقد والباء والشرعي وافقسن هدينا قطعتها إن أنا حفيز كنا بحث ديار بقولنا هاي وهي الشرعي يكون ليسن نور إذا باب ذلوا مضى ومر كرنا لكن وحنا هاي ضد كان ما ضد كل واحد يجولين هاي intimidation وحبل وما قاضي جونات دو ورقد كوسو قري Garissa County إنك كهرجس إسكال أفه ميغوري County حتى أحبه وما قام كر جونات ورقد كوسو قري these are institution و Garissa County Assembly و Garissa County Assembly و independent entity واي so مو قاعدين Garissa County Assembly شرعي مريسو إنه Garissa County كذا غنجري كرو ما أنت هذا هذا Garissa County حوالها نوضد الحواريان هلا قبطه هلا حرام هلا قورعه وشرعي أنا عندي جنانا قوون هير جلايا مركب حاليا هاي وحبنان كاي ماذي أنا وحبنان ما قاضيو ولا لهن ورقنا يفوق مان شلا حلك هاين وان لهيني ومدنا وينوف جان سنتي ما أنت نروح علينا ولا لهن باتين سود بعد أسلوه شقينه نينكم ولا لكانه أو ندبكي ما ضرت دور شيء ولا نيجي مودني ما كسور جودي كورة مسير ندك كورة أنا متجري أو حلقة كتورة ما دام أورب كمان التورة أنكور يستغنى نين إسكو إيج ميدانو يوث أنسلنا أيان صار يسوي سحيب كيه ما أنت نسقي أزيميو قيبته بدنا أي حلقة قادة مرك شلي نينك موسمرة ونصور حق لي قيبتي ودولته كلها وقعتي ونشقي وحنك أسرنا ولا لكن أبو فرينتا أدري وحواي ولا لو يسبدل كودعة أنا هذا ما أنت ماشي كوجر لها إسكده أفتضبي توقف وأنا جديد توقف وأنا جسور جدا هارك لها ريزانيش ولا تبغى نقول لها أنت وحيانا نقول marka dawladdu afar sano kala dhiman dadka hadda abood doortay laga yaabo inay bari ay ridaan is all about interest marka waxaan leenahay
soo dhawaada aan isla wada shaqeyno Garissa County Assembly hal sano oo si fiican wada shaqeyn ay dhaxaysay ciladaha iska jireen ciladihii dhaceen waa hadda la saxaya insha Allah aan wada shaqeyno midna mid dawladda ay wadata ma ahan mid dawladda loo soo horjeedana ma ahan anaga xaq ayaan u leenahay house-kan wax banaanka ka imaado oo influence nagu lahan kara ma jiro waxaan baa qudaraynaa maaragtay Patrick in maaragtay arrimahan annaka is dooranay aan go'aan gaarnay aan Maxamed Cabdi Faarax aan dooran jirtay oo dibitkiisna oo ay doorteen aan ogeysiinayaa dadka maaragtay kale oo fidmahooda oo waraaqa aan maaragtay jirin aan meel kale ka keentay aan miis noo soo saaray leeyahay xafiiska baxa ay aan aqoon u lahayn ilaa aan ka helayno anaga speaker ruling oo maaragtay wallahi vacated office because of this ABCD arintani maxaan ognahaa annaka Azmiyo ka tashanay si ruux kasta uu sangareey asoo maaragtay gacantiis oo president oo ruux kasta oo maaragtay uu sangiis u meesha ku yaalo we don't have any fake document here everybody uu sangareey asaga maaragtay go'aan qaatay ina maaragtay Azmiyo oo coalition aan qabsanay oo maaragtay majority leadership cusub aan dooranay soo maxaan baa ku diray dadweynaha Garissa in arrintan maaragtay ay assembly oo looga dambeeyo oo maaragtay this a rule of maxawiy house of rule and procedure in maaragtay oo la ogaado aan annaka rule aan maaragtay oo river la keen aan aqoon yaan u lahayn aan maaragtay aan ku hoggaansamaynin soo maxad ogtiina waxaad ogaanaysiin arrintaasay inaan maaragtay meesha joogno aan ku adkaysanayno annagana xafiiskan aan joogno speakerha arrinta ayada ee si waraqihii iyo sharcigii sidii loo raacay markuu fiiriyay muxuu arkay arrintan ayada arrin sax u dhacday inay tahay marka taariikh 5 maalintay ahayd ayuu ruling ku sameeyay marka xeerka ka yaalo baarlamaanka maxaa waay haddii rulingka speakerha uu sameeyay wax ka duwan aad qabto inaad aado maxkamadda haddii wax waraaq ay ku soo siisane isla speakerhii asaga shalay rulingka bixiye inay waraaqdii loo dhiibo haddana ruling kale uu ka bixiyo hadduu dhaho shalay dadka rulingka aan ka bixiyo ee doorashada aad samayseen maxkamadda wax khalad iyo waxan bay ku aragtay sababta ayaga kuwii hore shaqada wadan diyaar baan u nahay haddii laakiin uu dhaho arrintan ayada maxkamadda way ku khaldantay mana soconayso kuwii shalay la doortaba shaqadooda wadani ayadana waa sheeko gooni ah laakiin maanta waxa meeshan lagu hayo ee weerarka ah hadda la sameeynayo wax ma aragtay sharci ah aqalkan asaga sharcigu ku dhisan maxaa waaye wax la dhaho standing orders yaa la raacaya marka standing orders aqalkana waa high court oo kale ma fahanteen marka aniga maxaan rabnaa sharciga asaga in la raaco to the letter wax alla wixii sharci ku saabsan anaga waan ayideynaa laakiin wixii maaragtay boobis ah iyo wixii maaragtay sharci la'aan ku imaado hal maalin ma qaadanayno mana ogolaanayno sharci un baana lagu kala bixi anaga mid aan ognahay ilaa iyo talaadada niman walaalaan haanta meeshan buuq ahayaan baa jiraan oo leeyihiin waraaq baan maxkamad ka soo qaadanay waraaqdan maxkamadda ay ka soo qaateen ma caddeyn karno ilaa ma speakerha intuu tago horta ninka majority leader loo doorta hadda waraaqda asaga laguma saafgaraynin oo lama siinin oo lama dhihin waraaqdii maxkamadda intay u keenteen court maxaa la dhahaa court clerk yaa la rabaa waraaqda inuu keeno court server weliba ninka muxuu ahaa majority leader cusub ee la doortay inuu court server intuu u keeno oo dhan waraaqdaadi waa sharci ahaan waa sidaas oo kale wixii annaga maana arkay xafiiska maxaa la keenaa laleeyahay kalaag iyo xafiiska speaker annaga markaa social media wax wareegaya baan aragnaa wax official ma hayno waxa social media ne nin walba wax iska soo qori karaa ma fahan soo marka wax war saxaafadeed waay wax binding ma aha oo sharci ahaan lagu tilaabo qaadi karo waxaan leenahay sharciga hal raado this is a house of rules and regulations annaga rules and regulations ki sharciga iyo qaanuunka ka jiro guriga ayaan qaabilsanahay aniga maxaan ahay ODM ninka hadda laga dhigay muxuu ahaa majority leader na waa Wiper midka deputies laga dhigana waa Jubilee midka laga dhigay whipkana waa KANU midka gabadha laga dhigana waa ODM marka aqalkii sidaas loo qaybsaday jagooyinkii maxaana qaybsatay jago Azimio maxaa ayaa qaybsatay oo maanta ka majority party guriga aqalka marka waan hasantiin annaga maxaan leenahay nin alla ninkii arinta ayada ee doorashada ee dhacday iyo rulingkii uu sameeyay speakerha ninkii dood ka qabo sharciga ha soo raaco waan qaabilaynaa